Marwan Maxamed Rooble waa musharax madax bannaan oo ka qayb qaadanaya doorashada heerka degmo iyo heerka gobol ayaa waxa uu dhashay 14 Sebtembar 1980 waa aabba xaasla waxaana uu leeyahay 3 caruur. Marwan Maxamed Rooble waxa uu yahay wiil uu dhalay Maxamed Rooble Wacays oo loo yaqaan Qardaadum. Wacays Qardaadum ayaa ayay u Marwan waxaana uu ka mid ahaa dadkii saxiixay heshiiskii Loyans Lagaar 26 Maarso 1885. Marwan Maxamed Rooble waa nin dhalinyaro oo aad u firfircoon gaar ahaan waxa uu waxbarashadiisa ku qaatay Djibouti kadibna waxa uu waxbarashadiisa jaamacadeed ku soo qaatay jaamacadda Montreal ee dalka Canada kadibna waxa uu ku soo laabtay dalka oo ka mid noqday ciidamada kadibna waxa uu ka qayb qaatay howlgalkii loogu magac daray Team Leader ee sugidda amniga maraakiibta iyo badaha isagoo oo la shaqeeyay shirkaddii EMS International oo ka qayb ahayd howlgalkii la dagaalanka burcadbadeeda. sanadku markuu ahaa 2014 waxa uu shaqo tagay marsada Djibouti isagoo noqday maamulaha xafiiska sugidda amniga marsada Djibouti. sanad kadibna waxa uu Marwan Maxamed uu shaqo ka helay shirkadda yabanada gaaska dabiiciga taasi oo ahayd shirkadda labaad ee ugu weyn wadamada Aasiya ee qaabilsan wax soo saarka gaaska dabiiciga. muddo 6 biloodan ayuu shirkadaasi la shaqeeyay ka hor inta uusan dhicin dagaalkii dalka Yaban. Marwan Maxamed waxa uu yahay nin dhalinyaro oo asxaabtiisa ay aad u jecel yihiin tixgeliyaan sharafna ku leh degmada Raasdika. waxa uu yahay dadka u adeega dadka taagtoodu ay hooseyso waxaana uu hadda gudoomiye uu ka yahay ururka hindisaha dhalinyarada ee wadani ee loo yaqaan marka magacooda la soo gaabiyo ECJ. waxa uu sidoo kale gudoomiye ku-xigeen uu ka yahay dalada kulmisa ururada bulshada ee degmada Raasdika. maanta Marwan Maxamed Rooble waxa uu yahay musharax u taagan doorashada heerka degmo iyo heerka gobol.